fariinta labaad waxaan doonayaa inaan u diro kooxdan isku magacawday murashaxiinta madaxnimada ee doonaya inay kursiga ka riixdaan ninkaas ayaguna ku fadhiistaan. fariinta koowaad aan u diray waxay tahay waad ogtihiina waxaan idin xusuusinayaa kursigan iyo boqortooyada ilaahay baa gacanta ku haya ciduu doonuuna siiyaa. qul illahumma maalika almulki tu'ti almulka man tashaa'u wa tanzicu almulka mimman tashaa'. dagaal iyo dadaal loo galayna laazim maaha in kursigaa lagu gaadho. midaan dadaalin buu ilaahay siiyaa. mid dadaalay oo dagaalamayna ilaahay waa ka qadiyaa. ilaahay baa hayoo gacantiisa ku jiroo bixiyee bal horta rumeeya. waa midda labaadee kursigu waa mid laba ruuxna ma wada qaado, 10na ma qaado, 7na ma qaado, hal buu qaadaa. kursigaa halka qaada waa midkii Soomaaliya intay isku laysay la qaybiyey oo gaaladu intay u sameeyeen landis fulaan lagu qanciyey. adiguna madaxweynaha tahay kursigii ayaa markii uu ku wada filaan waaya waxay noqotay in 10 kursi oo kale la soo saaro oo lagu qanciyo la yiraahdo landis kana madaxweyne fulaan kana madaxweyne fulaan. war kursigu waa mid ilaahayna nin buu u qoray. hadi xaqiiqa biyo kama dhibcaan waa. midda saddexaad leeyahay waxay tahay in badan oo kursi raadiso ku hungowday baa jirta, dambina ka raacay. imisa aaway dagaal oogayaashii aaway dad raggii dalkan soo burburiyey ee kursiga raadinaya aaway. inta kursi kaga fadhiisatay way yar yihiin, kulligoodna waxay qaateen wixii dalka ka dhacay. ilaahay bayna la hortagayaan. miyaydan kuwaana qaadanaynin, miyaydan wax ku qaadanayn. waxaan leeyahay luqadda qabyaaladda daaya, hadalka xanafta le daaya, fitnada kicinteeda ka fogaada, si mas-uuliyadii ku jirta u dhaqma. yaa dalka u tura, dadkan u tura, duruufta ummadda haysata u tura. ilaahay ka baqa. qabyaaladan lagu celcelinayo ee la kicinayo ee lagu hadlayo ee lagu dhaaranayo warsootii halkaa ina dhigtay ma aha. warsootii aan ku hungownay ma aha. warsootaan ku jabnay ma aha. war goormay shaati kale inoo soo xidhatay 30 sano kadib? goormay shaati kale soo xidhatay? soo iyadii uun ma aha. waa iyadii, laakiin wajiyadaa isbedelay. shalay waxay ahayd generaal fulaan buu ahaa shalay, maantana waa siyaasi fulaan. laakiin wax kaloo isbedelay ma jiro. waxaan leeyahay fitnaha abaabulina, aafana dalka iyo dadka sabab ha ugu noqonina, sharna horseed ha ugu noqonina. fitna lama dhudhumiyo, sharna layskuma dhereriyo. waa laga fogaadaa, waana laga taxadaraa. ka hortag buu leeyahay, ka daba tag ma leh. aafadu hadday hurtoy hulaacdana nin walbay saamaysaa. duruusteedana waanu haynaa. waxaan leeyahay oon ugu dambaysiinayaa kelimaadkan qoladaa ku leeyahay, ummaddan aad isu keenaysaaneed leedihiin mudaaharaad sameeya oo saaxadaha iyo bannaanada aad isugu keenayseed leedihiin dastuurka noo ogol. war waxaan idin leeyahay meeshu waa muqdisho. war waxaan idin leeyahay muqdisho idinkaa naga yaqaana. war bishiiba intaasoo qarax baa ka dhaca. war maalinkiiba intaasaa lagu dilaa. war magaalada hubbaa dhexdeeda yaalloo ku faafsan. war kooxa dadka laayaa tifka ah ama diin ha sheegteen ama kuwo kale ha ahaadeen
war way fududdahay dadka isu imaanaya dhexdooda in balaayo laga qarxiyo war mid baa ku dhex dhuuman karo isqarxin karaya war mid baa ku dhex dhuuman karo oo dadkan kada taxabadayn karo layn karaya war ayagaydan kontrooli karaynin oo hadday dhaqaaqaan xoolahana burburini hantidana burburini oo boob iyo dhacbaa imaanaya hanti la burburiyaa imaanaysa mana kontrooli kartaan dowladina ma kontrooli karto been waaye ya dowladaha waaweyn baa kontrooli kari waaye mudaaharaadku markay dhaqaaqaan dadkan waxaa ku jira dad xilma kas ah dad waxaa ku jira wax booba xisaabaad ijraan baa ku jira ya war maraykan baa kontrooli waayey oo faransiis baa kontrooli waayey oo ingiriis baa kontrooli waayey oo dowladihii xoogga badnaa baa kontrooli waayey ummaddu hadday dhaqaaqdo lama kontrooli karo waxa dhici karana ma saadaalin kartaan isweydiiya yaa mas-uuliyadda qaadi doona isweydiiya yaa mas-uuliyadda qaadi doona markaad ummaddan ku khamaaraysaan oo keliya ujeeddadiinnu ay tahay inaad ku abuurtaan keliyata breshar aad ku abuurtaan qolada idinka soo horjeeda oo waxaan la yidhaahdo muxuu ahaayey caalamka aad abuurtaan breshar ku abuurtaan ujeeddadiinnu intaa tahay waxay dhici kara iyo dhiigga daadan kara iyo aafada imaan karta iyo hantida burburi kartada aad wax badan ka ogsoon tihiin maxaad u khamaaraysaan maxaad dhiigga ummadda ugu khamaaraysaan maxaad masaalixdeeda ugu khamaaraysaan maxaad hantideeda ugu khamaaraysaan bimujarad inaad kursi gaadho aan la hubin inaad gaadhi doonto maxaad ugu khamaaraysaan dastuurkaa qaba waa xaq dastuuri ah war dastuurkan qabayo waa kee ma kii gaaladu idiin dejisay soo ma ah kii idinkala qaybiyey soo ma ah kii laandhiska idinka dhigay soo ma ah dastuurkan aad sheegaysaan haddii uu kitaabka ilaahay iyo sunnadii nebiga ka hor yimaado waa xaq dastuuri ah dastuurkiinba caqligiinni iyo wacyigiinnu hadduu heerkaa joogo maanta aad garan la'dihiin war maxaa imaan kara maanta ummadda meeshaa laysugu keenayo maxaa ka dhalan kara aad qiyaasi la'dihiin masaladu masale siyaasadeed maaha masale dowlad loogu hiilinaya ma aha mas'aladani waxa weeye waa muslimiin lagu khamaarayo dhiig yar oo ruux muslima ka daata ayaa ka muhiimsan dhiig yar dhimasho ma aha dhiig muslim oo daata oo dhaawac ku daata ayaa wallaahi uma wallaahi ka muhiimsan kursiga iyo waxay u ordayaanba nebi maxamed baana sidaa yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh war ilaahay ka cabsada war ilaahay ka baqa war aakhiradiinna ilaaliya war ummaddan ha ku khamaarina war dalkan dhibka ka daaya war waxaan kadaa tafarsameeya war isu tanaasula war tartiib u wada hadla war wixii maslaxa isla xaqiijiya war damiciinna dib u liqa masaalixdii damiciinna khaas ka ah maslaxada dalka iyo dadka ka hormariya ilaahayna uga baqa tabaaraka wa tacaala fariintayda ugu dambaysa waxaan doonayaa inaan idhaahdo shacabkan miskiinka ah ee lagu ciyaarayo ee maalinna magaca qabyaaladeed loo soo huwanayo maalinna magacyo kaleeta loo soo huwanayo rag damac iyo kuraasi iyo shahwo kursi haysana ay maalinba dab ku daadinayaan shacabkan miskiinka waxaan leeyahay shalayna wixii meeshaa ina dhigay waa wacyi-xumadeenna nimankii jabaadaha hogaaminayee gaaladu ay soo taageertay ee dalka burburiyey waxay inugu kacsadeen qabyaalad iyo ree hebel markaan gubannayna innagaa dabkii ku gubannay maantana waa sidii weeye cidda guban doonta oo dabka ku guban doonta waa innaga waa shacabka waa hooyada waa carruurta waa ardayga wax baranaya waa curyaanka war innagaa gubanayna waa dalkeennii waa deegaankeenii innagii baa gubanaynoo dab ku daadanayna maslaxadeena inaan garanno waayo inay isaga keen khaldamaan ma aha cid maslaxadeenna ficlan ka shaqaynaysoon dan inugu wadanin iyo nin dantiisa wadoo kursi doonayo awrka inugu kacsanayaa inaan kala fahmi weyno waa wacyi xumo in layna yidhaahdo soo baxa oo khatarta u badheeroo sidii dab laynugu dabaalalay oo kaleetana waa wacyi xumo inaan gacmaheenna ku burburina amnigii dalka iyo deganaanshihiisa iyo xasiloonidiisuna waa wacyi xumo aqoon darrada iyo wacyi xumadaana waa wax laynooga faa'iidaystay
waxaan dhihi lahaa danteena aynu garanno nabigeenu wuxuu ku taliyay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi fitanka ka fogaada meesha ay ka dhacayaana ka durka ha isku dheerarinina hana dhudhuminina ciddii shanta la gasha tobankay la geli maxaad u dhimani maxaad dabka u geli maxaad lagu dili maxaad dhiigaaga u daadin maxaad isu rafaadin maxaad heli qoladan kursiga doonaysay shalay bay hayeen qaar ka mid ah maxaa kuu soo kordhay bal isweydii kan hadda ku fadhiya markuu imaanayay sacabkaad u tunteena waxaad tidhaahdeen farmaajo iigee maantana waxa weeye halkaasay maraysaa war midina malab idin daaqsiin maayo midina dhulka cagaar idinka dhigi maayo ninna shidaal idiin soo saari maayo ninna duruufihiinnan ka jawaabi maayo iyo aafada idin haysata ka jawaabi maayo aan idiin sheegay danteenna aynu garanno fitankana aan ka fogaanno yaan layna isticmaalin ayagana wixii maslaxa aan kula talinoon gacanta qabanno gacanta inaan qabanno warkadaa dalka annagaa leh annaga lexjecla naga haysa haddayna adiga kaa haynin hadday ogaan lahaayeen shacab is-hortaaga hadduu jiro inuu jiro hadday ogaan lahaayeen shakiga kuma jira waxyaalaha qaarkood way ka gaabsan lahaayeen laakiin waa layna tijaabiyey waana layna arkay marka waxaan leeyahay wacyi aan yeelanno masaalixdeenna aynu garanno danaheenna aan ilaashanno nabigeenna wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sheegay markay fitanku kacaan oo aafaadku sidanoo kale u istaagaan danahaaga khaaska aad danta caamkaana isaga tag nebi maxamed baa yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh danahaaga khaaska aad dukaankaaga aad ganacsigaaga aad hawlahaaga aad mudaaharaad iyo kursi iyo orod iyo qajajac iyo isaga tag dantaada ma ahe ka danayso yaa leh macnaha nebi maxamed baa leh salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa haddaynu yeelaynaynu qaadanayna way isagaana dantu inoogu jirta meesha maanta aynu joognaayey waa meel inaynu ka soo kabanno ka soo waaqsanno ay qaadan doonto cuquud qaadan doonto tobanaan salay qaadan doontaan maxaa yeelay shalayna qabyaalad baa laynoo isticmaalay maantana dowlad goboleedyaa laynoo isticmaalayaa dowlad goboleedyadan yaa dhisay sistamkan yaa soo dejiyey gaalaa soo dejisay beesha caalamka haddaad maqasho beesha caalamka waa dana gaalo waaye aad baana uga xumahay mutacalimiintii soomaalidu in warkooda ku bato beesha caalamka noo soo gurmato beesha caalamka war beesha caalamku yaa waay beesha caalamkay kuu soo gurmanaysa yaa waay caqli xumaada iyo waxyi xumadaada intaad walaalkaa isfahmi weydeen walaalkaa baa waxaad leedahay beesha caalamka ay beesha caalamka beesha caalamku soota adduunka burburisay maaha waa adduunka halkaa dhigtay maaha war waxyigeenna aynu garanno soota halkaa ina dhigtay maaha qabyaaladii reehebel iyo reehebel ahayd unbaa maanta waxaa loo bixiyey landis iyo landis xaggeed ku aragtay dowlad goboleed dowladdii dhexe ka awood badan xaggeed ku aragtay adduunka xaggee ka jirtaa oo dowladdii dhexe amarka ka soo baxay maya dhihi karta oo diidi karaysa xaggeed ku aragtay mihaal qaata billaahi calaykum waa idinku dheereeyey kenyaynu hadda joognaa countiga governaha dowlad goboleedka madaxda ka ah dowladda dhexe amar hadday bixiso isagoo jeebaysan baa lasoo qabanaa ma tahay mise ma aha etoobiya waatan kilillo weeye kililka ninka madaxweynaha ka ah dowladda dhexe hadduu amar ka soo baxo isagoo jeebaysan baa lasoo qabanaa wayna dhacday xaggee buu ka yimid sistamkan markaa ummaddii inta lagu qaybiyey nin gobol joogaayo uu dhihi karo maya oo masiirka ummadda siduu doona ka yeeli karayo sistamkaasi yaa kuu dejiyey yaa kuu keenay yaa ku geliyey ma isweydiisa ma dantaadaa ma isweydiisa waa markaan leenahay meesha layna geydhsiiye godka iyo booraantana lagu riday inaan ka soo baxnaayey waxay qaadan doontaa cuquud aad u dheer iyo juhdi iyo dadaal iyo wacyi ummad wax fahansan oo dalkeeda iyo deegaankeeda ka danqanaysa oo danaynaysa ayay u baahan tahay xaaladda noocaasoo kalea marka waxay u baahan tahay muhimna ah shacabka soomaaliyeed oo meelaad joogtaan badanihiinna garta wacyi iyo fahamna yeesha masaalixdiinnana u istaaga ma aha rag
iyo hebel ma laakiin masaalixdiina dalkiina iyo deegaankiina iyo diintiina iyo dadkiina sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda allahumma 'an as-sahabati wat tabi'in وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك